midowga dhalinyarada isbaahaysiga ee isbedeldoonka Somaliland oo hore looga dhawaaqay qaar ka mid ah gobolada Somaliland ayaa sidoo kale laga dhawaaqay magaala madaxda gobolka cagaaran ee Gabiley. dhalinyaradani ayaa sida ay carabka ku dhufteen ujeedadoodu tahay la dagaalanka qabyaaladda, musuqmaasuqa, cadaalad darrada iyo wixii la halmaalaa. dhalinyaradani oo arrimahaas ka hadlayana waxay yiraahdeen runtii kulankayagan ama shirkayagan waxa uu daaran yahay dhalinyarada isbedeldoonka ee Somaliland. dabcan kulay waxaanu kala simanahay dhammaan ummadda reer Somaliland oo dhan lixda gobol iyo Gabiley. runtii waxa weeyaan waa fikir ka yimid dhalinyarada. dhalinyaraduna waa asadka qura ee ummadii haysato. ujeedada ugu weyn ama hadafka ugu weyn ee laga leeyahayna waxa weeyaan in wadanka wax badan iska bedelo. xaaladda maanta lagu jirana aad baynu uga daragsanahay ka dhalinyar ahaan waxaan nahay dadka aadka ugu dhex baaba'ay qabyaaladda, musuqmaasuqa, cadaalad darrada iyo mustaqbalka dhalinta. haddii aan mid isku dul taago qabyaaladda waan ognahay maanta halkay ka taagan tahay wadanka. dabcan waxa weeyaan haddii wax la dooranayo qabyaaladda wax lagu doortaa. haddii cid la rabo in la soo saaro qabyaalad baa lagu soo saaraa. haddii cid shaqo la geynayo qabyaalad baa lagu soo saaraa. runtii mar walbana ama xaflad kasta ama munaasabad kasta waxa lagaga hadlaa qabyaalad. laakiinse waxa daan ficilkeeda la qabanay kullay sidaa kuma baabaaso. anoo ka dhalinyaro ahaan waxaan la gudboon haddaan nahay dadkii loo adeegsanayay qabyaalad ama la doonayay in mustaqbalkooda lagu marajan habaabiyo. qabyaaladu ay koow ka tahay in la cirib tiro. qodobka labaad oo isaguna musuqmaasuqa. musuqmaasuqu kullay waxa weeyaan waa aafo daldan burburisa koow ka soo aloosanta dawladda iyo cidda xukuumadda markaas. maanta haddaan nahay dadkii wax soo bartay, cilmiga lahaa, asadka ahaa, ummadani berri toolayna hogaamiyaan doonaya. dabcan waxa weeyaan mustaqbalka fog haddii laga hadlayo waa in adigu aad u sii jeexdo ilmahaaga yar. dabcan tan maanta ayna haysata waa fayna wada qabsatay. waxaan ka hadli doonaa isbedeldoonka dhalinyarta halkan isku timaaday anigoo aan hadalka bedinayn hadalkana soo koobaya. dhalinyartu waxay u taagan tahay isbedeldoon loo Somaliland oo dhan ka taagan. dhalinyartu waa dhalinyartii gobolka aqoonta u lahayd. maadaama Somaliland tahay 70% dhalinyaro waxa loo baahan yahay in dhalinyarta aqoontooda laga faa'iideysto. maanta haddii aqoontooda laga faa'iideysan waayo goorma laga faa'iideysanaya? koow waxa ka qodobada maanta laga hadlayay qabyaaladda, musuqmaasuqa, cadaalad darrada. waddankeena Somaliland waxa aad ugu badan qabyaaladda. waxaa jira dhalinyaro fara badan oo ku soo qalinjibiyay PhD ama master oo maqaaxiya fadhiya oo ku horeeya qof aan aqoon lahayn sababtoo ku joogaana meesha ay tahay qabyaalad. waayo cadaalad darradu waxay baabiisaa waddanka. waxaad ogtihiin sixir barku halku marayo. waxaad ogtihiin abaaraha waxay noo soo abaaraha waxa keena waxa weeyaan dambigeena bata iyo musuqmaasuqa. waxaan nahay midowga dhalinyarta isbedeldoonka Somaliland. Gabileyna waxaan rajaynaynaa inuu midowgani noqdo midowgii keena inay dhalinyartu isku duubnaato. midowga dhalinyaradu ha guuleysto, dhalinyarada reer Gabiley ha guuleysato. ilaahay idankiina waxaanu rajaynaynaa in horumarka ballaaran ee maanta aanu bilownay Gabiley iyo Burco iyo Sool iyo Sanaag iyo Booramo laga bilaabay inuu noqon doono mid waara oo lagu aflaxo oo horumar ballaaran bulshadeena iyo dhalinyarteena intaba keena. midowga dhalinyarta hala taageero, horumarka dhalinyarta hala taageero, waxqabadka iyo kalsoonida ay dhalinyartu la soo baxeen hala taageero. ididilada wanaagsan ee soo muuqatay ma aha mid cid laga hortagayo, ma aha mid cid lagu hujumayo, waa mid aan lagu danahayaga aanu kaga tashanayno. waa maalin kale oo cadceed u soo baxday bulshada iyo ummadda reer Somaliland. waa midow Somaliland oo dhan aqoon-yahankeeda iyo indheergaradkeega inteeda badan ay aloostay. waa midow u taagan isbedel togan oo loo aayo. si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinka dambe isa soo taraya isla markaasina ku soo badanaya magaala madaxda gobolkani Gabiley ururo ay dhalinyaradu ku midoobeen haba kala aragti duwanaadaan. taasi oo salka ku haysa shaqo la'aan baahsan oo da'yarta haleeshiisay inay ka dareen celiyaan duruufaha bulsho weyntu ku sugan tahay. haddaan sida ugu dhaqsaha badan leh shaqo abuur loogu jahayna ay keeni karto kacdoonno ismaandhaaf leh. waa Cilmi Maxamed Jaamac, fogaan aragga xorta Star TV magaalada Gabiley.